waxaa loo keenayaa warqad waxay ku qoran tahay far waaweyn af Talyaani bay ku qoran tahay bac biyaha looga ilaalshay iyo roobka ayayna ku xiran tahay waxaa ku saxiixan Mudane Cabdulaahi Ciise waqtigii uu ra'iisul wasaaraha ahaa ama daaqiliyadii waxay ku socotaa dhammaan hay'adaha dawladaha nabad dadweyne soo dhawaada dhambal dhigta ama haddaad doontaan gambarkiinaba soo qaata waa biladay ha lagu sheego ama ha lagu sheege maantana waa ha lagu sheego ku soo dhawaada qaybtii labaad ee Cali Nuur yuu ahaa waxay warqadu sheegaysaa ninkan waa Cali Nuure hadduu yimaado si xushmad leh loo soo dhaweeyo xushmada iyo maamuuska ra'iisul wasaare hala siiyo wax alla wuxuu doonana hala siiyo wax laga qarin karaana ma jirto General Galaal markiiba wuxuu dirayaa baabuur looga soo qaado iridka uu taagnaa Cali Nuur waxaa la siinayaa salaan iyo dhammaan soo dhaweyn ra'iisul wasaare wareysi kadib iyadoo aan waxba laga qarin lana fulinayo warqadda amarka ku qoran ayaa loo xog waramayaa loona sheegayaa inay hal taangi oo ay haystaan uu ka ciladoobay haddaan degdeg loogu sameynin in arrinkoodu uu quus yahay Cali Nuur wuxuu isla markiiba weydiinayaa yaa sameeyay taangiga Galaal wuxuu leeyahay waxaan u sheegnay Ingiriis ayaa sameeyay wuxuuna leeyahay Cali Nuur gaariga ii saara waa loo saarayaa 4 maalmood kadib wuxuu dib u soo celinayaa birtii taangiga ka xumaatay oo cusub waxaana ku soo beegmaysaa iyadoo arrinkooda uu aad u liitay xabashida oo hankeeda ahaa inay qabsadaan berbera ay ka baqayaan inay guusha raacdo si kastaba ha ahaatee markiiba hore ayay ka cabeysteen oo waxaa saaqday saxansaxadii guusha waa ciidanka Soomaalida markii ay kii ugu horeeyay ka tuureen hees baa isqabsatay ahayd geeshkayagow guuleysta Cali Nuur qashuuc dartii ayaa ilmo ay soo dhaafaysaa waxay siinayaan salaan iyo maamuus ra'iisul wasaarenimo mar kale waana uu baxaya la soco qaybta 3 idinka alle waa biladay hayga herine isoo raac